السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنت وعنا ونحسن لما داود ياشد قيمة هي قدرة مدنو ميل كستو جوجتان وقت كستيد انتهاي وقت وهيدين وعنا هذا بدبادين حريستي بنا كركينا هاتو halkaad igala socotaan adiga daawanaysan waa Mustafa TV channel kusoo dhawaada barnaamijkeeni taxanaha ahaa aynu kaga hadli jirnay siiradii nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kusoo dhawaada qaybtii afaraad. waxay noo maraysay dhacdadii cajiibka badnayd ee nabiga sallallahu alayhi wa sallam lagu sameeyay, waxaana inoo joogtay iyadoo oo markaas qalitaankii lagu sameeyay nabiga sallallahu alayhi wa sallam caloosha ama laabta laga sameeyay ay dabeetana u yimaadeen ku yara ay walaalo ahaayeen markay soo gaarsiiyeen Xalimatu Sacdiya. kadib ay u yimaadeen ay xaqoodii u soo yaaceen Xalima iyo wax weeyaan saygeedii bay u yimaadeen. kadib ay wareysteen nabiga sallallahu alayhi wa sallam, kadibna ay go'aansatay in ay celiso oo nabiga sallallahu alayhi wa sallam u celiso reerkoodii iyo hooyadii ay u celiso. kadib waa ay celisay Xalimatu Sacdiya. nabiga sallallahu alayhi wa sallam dabeetana waxay uga warantay in ay dhacdadan ay la kulantay nabiga sallallahu alayhi wa sallam, arintan fajaca iyo argagaxa ku noqotay ee uu la kulmay, sidaa darteedna ay u soo celisay. dabeetana waxa ay tiri iyadoo uga waramaysa Aamina oo ahayd nabiga sallallahu alayhi wa sallam hooyadii, dhacdadii iyadoo uga waramaysa ayaa waxa ay tiri waxa ay la joogeen waqti ay la joogeen maqal iyaga ku yar ay walaalo yihiin ayaa mid ka mid ah uu noo yimiday xagayga u soo cararay. dabeetana waxa uu noo sheegay in dhacdadan ay ku dhacday. dabeetana waan soo cararay bay tiri anigii wax weeyaan odaygii baan soo yaacnay, xagiisa ayaan soo yaacnay. kadib waa aan wareystay oo waa aan warsaday waxa aan weydiiyay wixii ku dhacay. kadib waa uu waramay nabiga sallallahu alayhi wa sallam Xalimatu Sacdiya. waxaana uu sheegay inuu yimaadeen laba nin, labadaas oo watay dhar cad. kadib ay su'aal isweydiiyeen oo yiraahdeen makana, mid ka mid ah ayaa kii kala su'aal weydiinaya. dabeetana waxa uu leeyahay makana isagoo u jeeda nabiga sallallahu alayhi wa sallam. dabeetana waxa ku yiri ha waa isaga ka Allah subhanahu wa ta'ala inoo soo diray. kadib labadoodiba waa ay soo qaabileen ayaa uu nabiga sallallahu alayhi wa sallam yiri, isagoo markaa u waramaya waxa weeyaan Xalimatu Sacdiya. waa ay soo qaabileen waana ay soo kala dheereeyeen oo ay soo kala baratameen. dabeetana waa ay qabteen waana ay jiifiyeen. dabeetana waxa ay caloosha ayaa ay dilaaciyeen ay jeexeen. kadib caloosha ayay inta uurka jirta ay wax ka baadheen. wixii ay baadhayeen ayaa ay heleen. kadibna waa ay tuureen. mana garanayo waxaas ay baadhayeen ay tuureenna waxa uu yahay. marka warkan waxay siinaysaa Xalimatu Sacdiya Aaminatu bint Wahab ayaa ay warkan siinaysaa, way uga waramaysaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam dhacdadii ku dhacday. istaasaana u sheegtay ayna ugu warantay Aamina. waxayna ku tiri soo barbaariyay soona koriyay waana uu sigtay. waan soo barbaariyay soona koriyay. dee dhacdadaas iyo arrinta la yaabka naxdinta lena waa ay ku timiday waana uu sigtay. waa kaas ee marka waxa weeyaan salaama. mar haddaan soo barbaariyay soo koriyay iyadu uma soo celin
waxa weeyaan arrin kale uma ay soo celin, laakiin naxdin iyo warwar ay ku noqotay arrintani ayaa ay u celisay. waana taa hadalka kusoo gabagabaysay waxaana u dhamaatay ama ku dhamaatay dhacdadii cajiibka badnayd ee nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu sameeyay ayaa halkaa inoogu dhamaatay. taas oo waxa weeyaan soona afjartay, soona waxa weeyaan gabagabaysay barbaarintii iyo korintii ay soo barbaarinaysay, ay soona korinaysay, soona nuujinaysay xalimatu sacdiya nabiga sallallahu alayhi wasallam. haddaba fiiro gaar ah halkaas waxaad ka fahmi kartaa in uu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ilaahay subxaanahu watacaala diyaariyey, uu ahaa bashar alle subxaanahu watacaala diyaariyey. waxaan kaloo ka fahmi karnaa inuu ahaa bashar marnaba basharnimadu aanay ka tegin dheeraadyo uu lahaa nabigu sala allahu calayhi wasalam. waana ka ilaahi subxaana watacaala halkaa qur-aankiisa kaga waramay isagoo oo nabigu leh qul inamaa ana basharun mithlukum yuuxaa ilay. aayaddaas ayaa inoo cadaynaysaa. waxaana uu lahaa nabigu sala allahu calayhi wasalam mucjisooyin ayaa uu lahaa. halkaas waxaynu kusoo gabagabaynay dhacdadaas waxa weeyaan nabiga sala allahu calayhi wasalam lagaga sameeyey camaliyadii haloosha ama laabta lagaga sameeyey. inta aynu ku kulmayno deriskan xiga waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu.